qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo oo warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV la hadlay ayaa ka warbixiyay fahanka dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka jira magaaladaasi isla markaasina waxay sheegeen in furfurnaan dhanka ganacsiga uu jiro isbedelkii kadib walow intaasi ku dareen in marmarka qaar ay caqabado ka haystaan dhanka sarifka oo sare u kac ku yimaado ay kala kulmaan dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Wardheer xilligan aan taaganahay aad buu uga fiican yahay xilliyada hore magaalada ganacsigeedu aad buu hadda u ballaaran yahay ganacsiyo fara badan oo kala duwan baa jira oo 7 sano u dambeysay magaalada ku soo kordhay xilligii hore iyo xilligan farqi weyn yaa u dhaxeeya dhanka ganacsiga muddooyinka hore ganacsigu dad gaar u xirnaan jiray waxa laga yaabaa in raashinka qof u xirnaan jiray bagaash qof u xirnaan jiray oo dadku badankiisu ay qofka ka shaqaadan jireen alaabta hadda qof walba meeshii dekada u dhow buu u doonanayaa safarkiisa saa keensanaya marka wax ilaahay loogu mahadiyo weey فرق وين بدن كنعسية كتيرة سبدل وين بكتير دن كنعسية ولا وحكي بدلين هدي ودري من كرتا كنعس قف أحر حرن وهالقافة بس اللي قلنا سنوتشينية يكنعس بالشوق دون أفرن أو بابليا إن جديد كلفتك سواء أركسا جديد في المجال ولا هذا يلا شن بقول جديد كبدن أو مجال جديد اللي قليه يا كتير كنعسية ذا مسوك ترين كرنا وحاصل دون مركه روح كوبن بأهاين مركه وحاها عندكوا ayadu magaalada in loo guuro la rabo baaba isbedelku yimid waqtiga aad buu rantaa dadka garanaysa magaalada dadka ku socodka dadku hadda magaalada hadda baqarkan oo dadka adeegta dhamaan tuulooyinka ka yimaadaan ma garataa meelaha bagaashka ka yimaado daano bagaashka iyo shirkadda alaabta waxay uga timaadaa boosas ay uga timaadaa boosas ay uga timaadaa waxyaabaha maarta xoog ku saatan ama shirkaddan magaceeda waxa la lahaa baaba maama alaabaha ay khaaska ayadu u leedahay ee shirkaddan keenta waxa ka mid caanaha aduu ilaahay ku sameeyay oo galiyahay bariisyada qayb kamid sida bariiska xamsaha oomooyinka oomo dhol baby choy xafaayad la dhaho xafaayad aad u fiican alaabo fara badan oo shirkaddan ay toos ay dekadaha uga soo dejistaa jira marka waa dadka isbedel kadib fursad u helaan in dadka bulshada ay soo gaarsiiyaan adeeg raqiis waxaan horta dadka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa in dawladda bas lagu tirsanaa dawladda kaliya waxba laga sugin ee fursadaha ganacsiga ee jira nin walba karaankiisa meesha uu kaga faa'iideysan karo uu kaga faa'iideysto ganacsatada ayagana waxaan kula talin lahaa fursad fara badan oo ballaaran baa jira in dhammaan ganacsiyada iyo waxyaabaha ku kooban meelaha kale ay leeyihiin inay magaalooyinka deegaanka keenaan dadkana uga faa'iideeyaan aduu ilaahay ku sameeyay ogolay fursad fara badan oo deegaankan 7 sano u dambeysay inuu ganacsigiisa hadda bilaabanaya still opportunity fara badan fursado fara badan baa jira ma ganacsatada waxaan ku boornaa in ay si hor leh ee magaalooyinka Wardheer iyo agaarkeeda ay u yimaadaan oo ganacsiyo hor leh uga furtaan wallahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax ilaahay lagu mahadiyo kulay dhalinyaro badan ma aaminsana dalkooda in ay ka shaqeysan karaan laakiin waxaan ku baraarujinayaa dhalinyartu inay iskoodu istaagaan oo ay ganacsiga targetka saaraan inay naftooda horumariyaan dalkooda iyo dadkoodana ay horumariyaan ayaan mar walba ku baraarujinayaa dhalinyarta deegaanka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarta gobolka Doolo degmada Wardheer inta waxaan ku baraarujinayaa inay wadankooda u ganacsi yaalo haday u samraan u dulqaataan ma garanaysaa ay u istaagaan inay iyagu naftooda horumar gaarsiiyaan ay gaarsiin karaan ganacsiga isbedelkiisa waqtiyadii u dambeeyay aad baan u soo dhaweynaynaa sababtoo ah ganacsigu sidiisaba wuxuu ku yimaadaa waa population hadda is dhex galaan ganacsigu ma garanaysaa wuxuu noqonayaa mid hirgala oo toos ah taana waxa keenay waa furfurnaanta dalka ka jirta iyo deegaankaba taana waa mid aan aad ugu mahadcelinayo waa mid aan soo dhaweynayo mid aan sii xoojinayo nabadda iyo ma garanaysaa horumarkana aan kasii shaqeyn doona insha Allah waagii hore nin dhalinyaro oo ku hiran jiray xataa inuu ganacsi furto iska daayay xataa inuu dalkiisa si fiican u joogo nabada ma jirin ruumaalay shay baan ku joogi jiray magaalada iyo wadankaba laakiin hadda alxamdulillah magaaladeedii goobtaydii dadkaygii waxaygii baan ku dhex ganacsanayaa wallahi anigoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta inay dalkooda aaminaan oo dadkooda ma garanaysaa ku tala jiraan inay ganacsiga targetka saaraan oo ay naftooda horumariyaan kaliya dawladdu ma aha inay dhalinyartu targetka saaraan oo ay dawlad kaliya ka fikiraan inay wax u qabato dawladdu iyada u baahan ma garanaysaa in mar walba ay dhalinyarta garab istaagto laakiin qofku waa inuu marka hore isagu uu horumarka naftiisa u ka shaqaysiiyo mar walba uu damcayn ma garanaysaa naftiisa uu hor yeelo marka dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa inay ma garanaysaa dawladda inay ka maarmaan ay isku dayaan shaqo abuur ay sameeyaan inay iyagu iskoodu ganacsadaan
taasaan kula dardaarmayaa dhalinyarta. alxamdulillahi rabbil caalamiin magaaladan kulley ganacsigeeda waxeedu waa iska fiican yahay annagu dad waxaana iska elektrooniga elektroonigana maasha allah meel fiican buu marayaa ganacsiga magaalada meel fiican marayaa wallaahi walaalow dhaqdhaqaaqa elektroonig ganacsiga horta sanadba sanad xilba xilli uu ka dambeeyo ganacsigu wuu sii ballaaranayaa oo sii fiicnaanayaa ka deegaankeena ahaan annagu dad waxaa nahay hadda ganacsiga ay suurto gashay wixii isbeddel ka dambeeyay inay soo xaroodaan oo ay waddankooda maal gashadaan oo ay waxyaabo badan ku soo kordhiyaan magaaladeenu ma lahaan jirin meherad weyn oo elektrooniga sidan oo kale ah annaga ka hor waxyaabo iska yaryar ah oo waxyaabo yar ah lagu gadaa jirtay laakiin hadda waxaa suurto gashay in la helo meherad weyn oo elektrooniga oo gobolada geysa jimlada degmooyinka sidoo kale geysa de magaaladiina waxyaabo badan oo aan laga heli jirin ku soo kordhisa marka aad buu mataqaanaa hadduu fiican yahay magaalada ganacsigeeda waxyaabo badan baan ugu boori lahayn dhalinyarada fursadahan oo kale waxyaabo badan baa uga suurta gasha hadda meeshanada waxaan ku joogno oo wada dhalinyaro hadday shaqo abuur noqoto oo shaqo helitaan ay noqoto haddii ay noqoto berri ka maalin dad ganacsato oo waaweyn oo maskaxda u dhambalantay oo waxyaabo badan hirgeliya ay noqoto waxyaabo badan oo waxaa jirta dhalinyarada ugu jirta ganacsiga oo faa'iidooyin badan oo ugu jirta hadday dhaqaale ka samayntiisa ay noqoto hadday waayo aragnimo ay noqoto lama soo koobi karo fursadaha ganacsiga ka bannaan aad bay badan yihiin